qaybta saddexaad ee buugga ku raaxaysa noloshaada. qalbi nadiif ah. ma ogtahay in farxaddaada ay ka timaado qalbigaaga? mar kasta qalbigaaga ay tahay qalbi nadiif ah, waxaa fududaanaya in farxadda qalbigaaga ku jirto ay ka muuqato wejigaaga. mar kasta aad dadka cafiso una dulqaadato dhibaatooyinka aad kala kulmaysid, macnaheedu waxay tahay farxaddaada ayaad muujisay. cafiska iyo dulqaadka waxay ka tirtiraan qalbigaaga murugada iyo mugdiga, waxaadna helaysaa nafis raaxo ah oo ka imaanaya qalbigaaga, waxayna kaaga dhigaysaa qof ka sokeeya saaxiib. laakiin haddii aad qalbigaaga gelisid dhibaatooyinka dadka kaa sameeyey, waxaa dhacaya in farxaddaada ay nusqaanto, murugtana ay hesho boos ay ka degto qalbigaaga. xasuusashada badan ee dhibaatooyinka lagugu sameeyey dib u dhac ayay kugu keeni kartaa. cashar ka baro oo dadaal si mustaqbalkaagu u noqdo mid qurxoon. dabayshu waxay u socotaa hore, adiga marka aad u soconaysid waxaad u socotaa hore, adduunkuna wuxuu u socdaa hore. qofka caqliga lehna wuxuu ka fekeraa waxa soo socda. sidaas awgeed dhibaatooyinka lagugu sameeyey haddii aad ka socoto oo aadan u istaagin, soo ma ahan wax qalbigaaga farxad gelinayo, rabbigaaguna kuugu jeclaanayo. qofkii iska cafiya oo wanaajiya, ajarkiisa alla ayaa siinaya. suuratu shucaraa aayadda 4. ma cafin kari dhibaatooyinka lagugu sameeyey sabab u noqday in aad habeeno badan soo jeedo. xanuunkeeda adiga keli ah ayaa dareensan. in aad iska cafiso waa arrin aad u dhib badan, laakiin ma ogtahay cafisku in aad adiga wax badan ka faa'iidaysid inta aan la gaarin qofka ku dhibaateeyey. tusaale ahaan, haddii aad xanaaqdo, qalbigaaga geliso cuqdad, wejigaagana murugo ka muuqato, ama haween badan la jiifan weydo adiga oo ciil ku hayo, markaas yaa dhib qaba? ma adiga mise qofka dhibka kuugu sameeyey? adiga unbaa wadnahaaga dhibaato u geysanaya, ee qofka kale waxba ma aadan u dhibin. alle wuxuu leeyahay, mana isku eka wanaag iyo xumaan, bixi arrinta fiican. markaas waxaa soo bixi in midkii col idin dhex yiil uu noqon sokeeye iyo saaxiib. waxaa laga yaabaa in dadka qaar saamaxaadda u arkaan jab, aamusnaantana u arkaan jab, laakiin waxaysan ogeyn cafintu waa mid ka mid ah tilmaamaha lagu garto dadka leh awood maskaxeed, ogna waxa dantooda ah. alle wuxuu leeyahay, cafiska dheeraadka ah qaado, wanaaggana far kana jeedso kuwa jaahiliinta ah. faa'iidooyinka cafiska. midka koowaad, waxaa lagu helaa sharaf iyo cizi, sida nebi sal sallam uu ku yiri xadiis, uma siyaadiyo addoonka cafinta ilaa sharaf cizi mooye. midka labaad, dadka agtiisa waxaad ka noqonaysaa qof la jecel yahay, isdhexgalkaaga bulshaduna wuu ku wanaagsanaadaa. midka saddexaad, mar kasta oo aad dadka cafisid, adigana alla ayaa wuxuu kuu ballanqaaday inuu dunuubtaada dhaafayo inta ay doonto hala ekaatee. midka afaraad, nafsadda ayaad waxaad ka dareemaysaa deganaansho iyo raaxo qalbiga. midka shanaad, waxaa lagaa badbaadinayaa dhibta maalinta qiyaamo. midka lixaad, qalbigaaga wuxuu ka badbaadayaa cudurrada qalbiga sida baaritaano badan ay ku xaqiijiyeen dhaqaatiirta. midka toddobaad, waxaa lagu siin abaalmarin aad u weyn, alla keliya og yahay. alla wuxuu leeyahay, qofkii iska cafiya oo wanaajiya, ajarkiisa alla ayaa siin. raaxada jirka. cunto caafimaad leh. daryeelidda jirkaaga iyo caafimaadkaaga waxay saameyn aad u weyn ku yeeshtaan farxaddaada iyo ku raaxaysiga nolosha. nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay in qofka nafsadiisa xaq ay ku leedahay. sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu dhihi jiray, saaca wa saaca, oo laga wado in qofka xaqa rabbigiisa uu ku leeyahay la yimaado, sidoo kalena uusan iloobin xaqa nafsadiisa ay ku leedahay, uguna raaxeeya wax walba oo alle u baneeyey, labadaba ajar lagu siinayo. alle ma uusan naga reebin in aan ku raaxaysano dhammaan quruxda adduunkan yaala, bal wuxuu alle tilmaamay in quruxdaas iyo raaxadaas loogu talagalay muslimiinta.
aakhirana ayaga keliya gaar u ah. sida alle uu leeyahay, waxaad dhahdaa yaa reebay quruxdii alle uu u soo bixiyey dadka iyo wanaagga risqiga. waxaad dhahdaa waxaa iska leh kuwa rumeeyey alle, nolosha adduunyo dhexdeeda gaarna u tahay maalinta qiyaame. sidoo kale maalinta qiyaame qofka waa la weydiin doonaa qayb walba jirkiisa ka mid ah waxa uu ku qabtay. jirkaaga mas'uul ayuu kuugu yahay si wanaagsan u daryeel, sababtoo ah si aad nolosha ugu raaxaysato waxaad u baahan tahay jir caafimaad qaba. haddii aad tahay bilyaneerka adduunka ugu taajirsan oo aadan caafimaad qabin, waxba kuuma tarayso lacagtaas. caafimaadka waa wax aanan ka maarmin qof walba oo nool. caafimaadkana Allah ayaa bixiya, laakiin caafimaad darada qaarkood qofka ayaa sabab u ah, waana wax gacmihiisa uu ku kasbaday. halkan waxaan kuugu soo bandhigayaa talooyin muhiim ah si aad jir ahaan ugu raaxaysato noloshaada. biyaha. jirkeennu wuxuu u baahan yahay biyo si uu u shaqeeyo, ha ahaadaan kuwa lagu qubaysto ama la cabo. marka aad biyo cabto ama aad isku shubto, waxay ka dhigan tahay inaad heshay shidaal awood badan, waxayna wax ka taraysaa xasuustaada iyo firfircoonida ee aad dareemayso. alle wuxuu qur'aanka inoogu sheegay isaga oo ka hadlaya biyaha, wax kasta ayaan biyaha nolol uga dhignay. dhinaca kale, biyaha waa midka ugu muhiimsan wax kasta oo dhulka ku nool, sida bini'aadamka, xoolaha, dhirta. haddaba waa in aad cabtaa maalintii 8 galaas oo biyo ah ama 2 ilaa 2.5 litir oo biyo ah, gaar ahaan cabitaano aad ka heli karto nafaqo sida liinta iyo khudradda noocyadeeda kala duwan, si jirkaaga iyo maskaxdaada ay u helaan caafimaad. sidoo kale, haddii aad hurdada ka kacdid kadibna cabtid koob biyo qabow ah, waxay kaa caawinaysaa in ay firfircooni iyo dib u cusboonaysiin geliso unugyada maskaxda, taas oo qofka ku beerayso shucuur firfircooni oo maalinta oo dhan aan ka harin. sidoo kale, waxay culimmada caafimaadka sheegayaan in qofka oo biyo qabow ku qubaysta subaxdii hore ay ku abuurto firfircooni dheeraad ah. cuntada. waxa aad cunto iyo waxa aad cabto waxay macno weyn ugu fadhiyaan caafimaadkaaga. in aad cunto cunidaada aad wanaajiso waxay yaraynayaan khatarta helidda cudurro aad u badan. jirka wuxuu u baahan yahay maadooyin kala duwan. si aad u hesho dhammaan maadooyinka jirka u baahan yahay, waxaa muhiim ah in aad cunto cuntooyin kala duwan sida kalluunka, gaar ahaan salmon, tufaaxa, canabka, mooska, cambaha iyo qaraha, ansalaatada, liinta iyo karootada, hilibka digaaga, geela, lo'da iyo ariga, shukulaatada madow. cunto kasta waxay leedahay faa'iido. sidoo kale, waxaa jirta cuntooyin uu jeclaa nebiga sallallahu calayhi wasallam oo faa'iido badan ku jira. qaarna waxaa lagu sheegay qur'aanka kariimka ah. waxaa ka mid ah midka koowaad, malabka. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, waxaan idinku ogahay 2 daawo, qur'aanka iyo malabka. malabka waxaa ku jira faa'iidooyin badan iyo fitamiino kala duwan. baaritaan la sameeyey ayaa waxaa la ogaaday in malabku daawo u yahay cudurro badan, sida uu alle ku sheegay qur'aanka kariimka ah. suuradda lagu magacaabo suuratu naxli, alle wuxuu tilmaamay in ay malabka dhexdiisa daawo u tahay dadka. midka labaad, timirta. timirta keligeed waxa ay kaafisaa baahida jirka dhinaca nafaqo iyo tamarba. ugu yaraan 1 xabo aad maalintii cunto waxa ay kuu kordhinaysaa waxtar aad u fara badan. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu tilmaamay timirta madiina ee cajwaan, qofkii cuna subaxdii 7 xabo inuu maalintaas ka badbaadayo sun, sixir iyo wax kasta oo caafimaadkaaga dhibi kara. midka saddexaad, caanaha. caanuhu waxay ka mid yihiin cuntooyinka qur'aanka lagu sheegay. nebi sallam waxa uu inoo sheegay in caanuhu u wanaagsan yihiin qalbiga, sidoo kale waxay xoojiyaan dhabarka,
sidoo kalena waxay kobciyaan maskaxda, aragga iyo xasuusta ayay wanaajiyaan. midka afaraad, cinabku waxa uu ka mid yahay cuntooyinkii qur'aanka lagu sheegay. waxa uu nadiifiyaa dhiigga, sidoo kale cinabku waxa uu sifeeyaa kelyaha, waana uu xoojiyaa shaqadooda. aadaabta cunidda iyo cabidda. si aad ugu raaxaysatid cuntada, waxa wanaagsan in aad aadaabta la xiriira cuntada iyo cabidda nebigeena ina baray aad la timaadid. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu mar arkay wiil yar aan wanaajinaynin aadaabta cuntada. markaas ayuu ku yiri isaga oo baraya aadaabta cuntada, wiilow, dheh bismillaah oo ku cun midigtaada, oo cun waxa kuu soo xiga. bismillaah oo macnaheedu ah waxaan barakaysanayaa oo kaalmaysan magaca allah. haddii aad hilmaamto oo aad xasuusato adiga oo weli wax cunaya, waxaad leedahay bismillaah awwalihi wa aakhirih. marka aad dhammaysana waxaad dhahdaa alxamdulillaah. waa inaad ugu mahadnaqdid allihii nicmada kuugu nimceeyey oo dad badan aanan haysan. waxaadna raacin kartaa inaad dhahdid alxamdulillaahi aladii أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نظافة. diinta islaamku waxay ina amraysaa inaan nadiif ahaano xagga jirka iyo ruuxdaba. waxay ina amraysaa in aan qurux badnaano. alla wuxuu qur'aanka ku leeyahay ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa u soo noqda oo xumaanta ka toobad keenay iyo kuwa isdaahiriya. haddii qofka jirkiisa, dharkiisa iyo gurigiisa nadaafad leeyihiin, ruuxdiisu way raaxaysanaysaa, jirkiisana caafimaad ayuu dareemayaa. culimmada caafimaadku waxay sheegeen in nadaafad la'aantu ay keento cudurro badan oo kala duwan. nadaafadda jirka. wejigaaga. nadaafadda wejigaaga oo aad daryeeshid waxay kaa dhigaysaa qof soo jiidasho leh, sababtoo ah wejigu waa meesha ugu horaysa ee qofka laga fiiriyo. waa muraayadda jirkeenna oo dhan. waa halka laga cabiro quruxda qof walba. timahaagu waxay u baahan yihiin daryeel iyo kawaqab dheeraad ah, sababtoo ah waa quruxdaada. ilkaha. nadaafadda afka iyo ilkuhu waxay saameyn ku leeyihiin caafimaadka qofka oo dhan. quruxda ilkahaaga iyo neefta udgoon waxay kordhiyaan dareenka wanaagsan iyo kalsoonida qofka. qubayska. si aad u ilaalisid nadaafadda jirkaaga, waa in aad maalin walba qubaysataa, kuna qubaysataa shaambo, saabuun, biyo ama waxyaabo kale si aad firfircooni iyo raaxo u dareentid. midka labaad, nadaafadda dharka iyo labiska. waxaa muhiim ah in dharkaaga nadaafad leeyahay oo nadiif yahay. adiga ayay kuugu xiran tahay dharka aad xiranaysa iyo nooca aad jeceshahay, laakiin waa in ay nadaafad leeyihiin. midka saddexaad, nadaafadda guriga. ruuxda iyo jirku waxay ku raaxaystaa meel qurux badan oo si fiican loo nadiifiyey. meesha aad ku nooshahay waxaa lagu gartaa caafimaadkaaga. nadaafadda guriga uu qofku ku nool yahay, laga bilaabo iridda hore ilaa iyo qolka jiifka, waa muhiim. waxyaabaha udgoon. waxyaabaha aadka u caraf badan ayaa waxa ay qayb ka qaataan caafimaadka, xasiloonida iyo farxadda jirka iyo maskaxda. nebigeena sallallahu calayhi wasallam aad ayuu u jeclaa waxyaabaha carfaya. jimicsi sameey. waxaad u baahan tahay in aad dhaqdhaqaaqdid oo jimicsi samaysid, orodid, socotid ama lugaysid si joogto ah. kaxaysid baaskiil ama jimicsi aad siisid qaybaha kala duwan ee jirkaaga ama muruqyadaada, si jirkaaga iyo maskaxdaada ay u helaan caafimaad, farxad iyo firfircooni badan. jimicsiga iyo ciyaarta wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u badan oo ka mid ah. midka koowaad, waxa uu jimicsigu qurxiyaa muuqaalka qofka. midka labaad, waxa uu dhisaa awoodda qofka. midka saddexaad, waxa uu maqaarka siiyaa caafimaad aad u sareeya, sababtoo ah qofka wuxuu ka helayaa dhidid, kaas oo jirka ka saaraya sunta iyo nabarada jirka ka soo baxayo. midka afaraad, waxa uu yaraynayaa murugada qofka. midka shanaad, waxa uu ilaaliyaa caafimaadka lafaha. midka lixaad,
waxa uu xoojinayaa awoodda caqliga ama maskaxda. midka 7 waxa uu siinayaa hurdo aad u macaan badan. midka 8 waxa uu qofka ka caawinayaa in uu dhimo culayska jirkiisa ama uu miisaankiisa yareeyo. midka 9 waxa uu ku siinayaa kalsooni. jimicsiga joogta ah wuxuu in yar maalin kasta kobcinayaa kalsoonida aad naftaada ku qabtid. midka 10 waxa uu kor u qaadayaa enerjiga jirkaaga. haddii aad si joogto ah u jimicsatid waxaad arki doontaa in howl yar ama mid badan aad leedahay maalintaada si fudud uga baxi doontid adiga oo aan ka daalin. qofka muslimka ah waa in uu noqdaa qof awood badan jir iyo maskax labadaba. nabi sal sallam wuxuu ahaa qof awood badan jir, maskax iyo iimaan ahaan. waxaa jira nin magaciisa la dhaho rukaan oo ahaa ninka ugu haysta legdanka carabta oo dhan. kadib nabi sal sallam ayaa ku dhahay, haddii aan kula legdamo aan kaa badiyo ma islaamaysaa? ninkii wuxuu dhahay, haa way legdameen, waxaana badiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam. ku dadaal orodka, sababtoo ah waa cayaaraha ugu fiican kaasoo jirka xoogeeya, sarana u qaada shaqada xubnaha jirka sida wadnaha. orodku wuxuu ka mid yahay sunnadii nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam. sida aan ognahay nebiga wuxuu la tartamay xaaskiisa caaisha. waxay leedahay caaisha, waxaan la socday nebiga sala allahu calayhi wasalam safaradiisa qaarkood aniga oo gabar yar ah oo aan cayilnayn. markaas ayaa wuxuu dadkii ku dhahay, iga hormara. markaas ayay hore u sii socdeen. wuxuu igu yiri nebi sal sallam, kaalay aan baratanne. markaas ayaan ka orod badiyey. wuu iga aamusay ilaa oo aan cayilay oo hilmaamay dhacdadaas. markaas waxaan raacay mar kale safaradiisa qaarkood. markaas ayuu dadkii ku dhahay, hore u socda. markaas ayay hore u socdeen. markaas ayuu wuxuu igu yiri, kaalay aan baratanne. markaas ayaan la orday oo iga orod badiyey. markaas ayuu qoslay isaga oo dhahaya, tan u qaado tii hore. dabaashu waxay ka mid tahay cayaaraha faa'iidooyinka badan ee islaamkuna ogol yahay in la baro carruurta soo koraya si ay jirkoodana u dhisaan, sidoo kalena ay naftooda ugu badbaadin karaan qaqoomid iyo wixii la mid ah. wuxuu cumar ibnu khataab dhahay, bara ubadkiina dabaasha iyo shiishka. ku dadaal in aad maalin walba samaysid jimicsi fudud si caafimaadkaaga iyo farxadaada u siyaado. kuna dadaal in aad jadwal jimicsi ah yeelatid. hurdo macaan badan. alle wuxuu qur'aanka noogu sheegay in hurdada raaxa nooga dhigay si ay jirkeena iyo maskaxdeena nasasho u hesho. sababtoo ah marka uu jirkaaga daalan yahay, maskaxda waxay halis ugu jirtaa waxyaabo badan, sida in daalka awgii ay maskaxdaada buuq ku furmo ama ay stress kuugu furto. si aad nasiino badan u hesho waa in aad qaadataa waqti kuugu filan oo hurdo ah, sida 7 ilaa 8 saacadood. haddii aad seexato aadna soo kacdo maalin walba isla waqtigaas, waxay kuu sahli kartaa in aad hesho hurdo fiican. iskana ilaali cunto cunidda xilliga aad seexan rabtid. ducada hurdo la'aanta. wuxuu leeyahay saxaabiga la yiraahdo Zayd bin Thaabit, nabi sal sallam ayaan u sheegtay in habeenkii oo dhan hurdo la'aan aan u soo jeedo, hurdo ma helayo. markaas ayaa nabi sal sallam i baray duco oo haddii aan aqristo uga bixi lahaa ciladaas ama xanuunkaas, waana ducadan: allaahumma qaarat الnujuum وهدأت العيون وأنت حي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهد ليلي وأنم عيني. ilaahow xidigihii waa dhaceen, indhihiina waa xasileen oo dadkii oo dhan waa hurdeen. adiguna allihii nool oo u qumaya adduunkan ayaa tahay. gamaanyo kuma qabato iyo lulmo, hurdadana kuma qabato. allaha noolow oo u taagan koonkan dhanow, habeenkayga ilaahow xasili oo deji, ishaydana ilaahow seexi. saxaabigii wuxuu yidhi, markii aan ducadan aqriyey, ilaahay wuxuu iga qaaday hurdo la'aantii iyo soo jeedkii.
haddii aad xilli dheer hurdada dhibaatooyin kala sii kulantid waxa fiican in aad raadsatid daryeel caafimaad. seexo adiga oo aqriyay ducada hurdada. seexo adiga oo rabbiga u toobad keenay. seexo adiga oo naftaada xisaabiyey. seexo adiga oo iska cafiyey qof kasta oo ku dulmiyey. seexo adiga oo ka fakaraya la kulanka Alle. seexo adigoo aqriyay suuratulmulk. safar raaxo badan. waxaan shaki ku jirin in safarka fasaxa ama booqashada xeebaha aad u wanaagsan yahay, sababtoo ah wuxuu qofka ku dareemayaa firfircooni dhanka jirka, waxayna saamayn kartaa caafimaadka maskaxda iyo dareenka farxadda. Alla in badan ayuu qur-aanka nagu amray in aan socono dhulka oo aan fiirino abuuritaanka Alle iyo quruxdiisa si aan isaga u xasuusano. baaritaan cusub oo jaamacadaha dalka Maraykanka soo saareen ayaa tilmaamaysa in habka ugu wanaagsan ee qofka nasasho iyo deganaan ku heli kara ay tahay inuu muddo 5 daqiiqo ah fadhiisto badda xeebteeda, si toos ahna u daawado badda. dad badan ayaa si ay isaga yareeyaan ciriiriga naftooda dareemayso iyo culayska badan ee saaran dhanka shaqada, arrimaha guriga iyo xanaanaynta carruurta, doorta inay qaataan daawooyin. laakiin waxaas oo dhan waxa ugu fiican sida cilmi baarista lagu ogaaday inuu qofku tago xeebta badda kadibna muddo 5 daqiiqo ah indhihiisa ku jeediyo badda, uu jirkiisa ka helo raaxo, maskaxdana ka hesho deganaansho ugu fiican. in badan ayaan safray, aad ayaan u jecelahay safarka, sababtoo ah waxay leedahay faa'iidooyin aad u badan oo ka mid ah murugta iyo welwelka ayuu xaliyaa. qaadashada fasaxa ayaa loo arkaa in ay tahay howlaha laga maarmaanka u ah maskaxdeena si aan u nasano, wuxuuna kaa caawinayaa inaad maskaxdaada ka qaado dareemaha murugta ah. midka labaad, farxad iyo qanacsanaan ayaa lagu helaa. in aad safar aadid waxay kaa caawin kartaa maskax ahaan iyo dareen ahaan farxad. midka saddexaad, waxyaabo cusub. in aad safar ku soo qaadato meel ka baxsan dalkaaga waxaad la kulmaysaa dhacdooyin cusub. dhacdooyinkaas cusub waxay kaa caawinayaan dib u soo celinta maskaxdaada iyo xoojinta niyadaada iyo kalsoonidaada. sidoo kale casharo qiimo leh oo aad wax badan ka baran karto iyo saamayn wax dheeraad ah ayaad la kulmaysaa. midka afaraad, nafsadaada ayuu hagaajiyaa. safarku wuxuu awood kuu siinayaa in aad ballaariso maskaxdaada. hab aad u malaynaysay markii hore inaysan suurtagal ahayn ayaad ogaanaysaa inay suurtagal tahay. ka farxi dadka. faafi farxadda. mar walba oo aad farxad ku abuurtid qalbiyada dadka kale waxaa badata farxadda qalbigaaga. adna Alle wuxuu kuu soo dirayaa dad ka shaqeeya farxaddaada. Alle wuxuu leeyahay abaalmarinta wanaaggu waa wanaag. farxaddaadu waxay ku jirtaa in aad ka farxisid dadka kale oo aad u naxariisatid, caawisid, u dhoola cadaysid, kula hadashid hadal wanaagsan. dhammaan waa dabeecado iyo akhlaaqiyaad ruuxda iyo nafta dareensiiya raaxo, xasilooni iyo nabadgelyo. farxaddaadu waxay ku jirtaa qof kale farxaddiisa. macallinku wuxuu inoo sheegay in maalintaas ay jirto cashar aad u muhiim ah. waxaan isdhahay qofka ugu horeeya ee fasalka tago noqo, laakiin dad badan ayaa iiga soo hormareen. macallinkeena ayaa soo galay, waxa uuna inoo qaybiyey warqad yar oo waxba ku qornayn. wuxuu yidhi qof kasta magaciisa halkaa ha ku qoro. magacyadeenna ayaan ku qornay, waana u dhiibnay. waxyar kadib warqadihii ayuu hal qol ku aruuriyey, wuxuuna yidhi qof kasta warqadda magaciisa ku qoran ha ku soo qaato 2 daqiiqo gudahood. waxaan u orodnay qolkii ay warqadaha ku jireen si aan warqaddayda u soo qaato, laakiin qof kasta ayaa isna raba inuu warqaddiisa qaato. si kasta aynu isku ciriirinaba qofna ma helin warqaddii ay magaciisa ku qornayd. macallinkii ayaa yidhi joojiya, markaan isku daya
qofka kale waqadiisa hela inuu siiyo qofka magaciisa ku qoran yahay. daqiiqada yar gudihiisa ayuu qof kasta oo naga mid ah ku helay waqadiisa. macallinkii ayaa wuxuu yidhi kadib, marar badan nolosheena sidan oo kale ayaa ku dhacda. qof kasta wuxuu meel kasta ka raadiyaa farxad, mana yaqaano meel ay ka xigto. farxaddeennu waxay ku jirtaa qofka kale farxadiisa. sii farxadiisa waxaad helaysaa farxaddaada. tanina waa nolosheena. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay in camalka alle uu ugu jecel yahay uu yahay in farxad lagu abuuro qalbiga muslimka ah. alle ayaa kuugu jeclaanaya, ajarna waad ku helaysaa in aad dadka la jeclaatid farxadda oo farxaddooda aad ka shaqaysid. noqo mid farxadda faafiya. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, midkiina iimaan dhab ah lagama helin ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay. qof walba oo naga mid ah wuxuu jecel yahay in uu maalin walba ku noolaado farxad. haddaba la jeclow adigana farxadda dadka kale. caawi dadka si uu alle kuugu caawiyo. waxaa jira waxyaabo badan oo aad maalin kasta samayn karto, kuwaas oo iftiiminaya maalintaada, ku dareensiinaya deganaan iyo farxad, kuugu jeclaanayaan dadka, kuuna ducaynayaan, ajar iyo xasanaadna aad ku helaysid oo aan lacag u baahnayn. waxaa ka mid ah isku day in aad ka qosliso 3 qof maalin kasta. qof murug haysto oo aad dhiirigeliso ama rajogeliso. qof xanuunsan in aad soo booqato. salaanta islaamka oo aad ku salaanto qof kasta oo aad aragtid. waddada oo aad wax dadka dhibaya ka leexisid. waayeel aad u naxariisato ama caawiso. afkaaga oo ummadda ka ammaan helaan. hadal wanaagsan oo aad dadka kula hadashid. in aad mar walba ku ammaantid wanaag. carruurta oo aad la ciyaartid. 2 qof in aad jacayl dhex dhigtid. natiijada baaritaanka ugu dheer adduunka. in aad xiriir fiican la samaysid bulshada oo qalbigooda soo jiidatid ayaa ah waddada ugu wanaagsan ee loo maro ku raaxaysiga nolosha. waxaa laga sameeyey baaritaano aad u badan oo qiraya in ay dabeecaddan nafta ku leeyihiin saamayn aad u badan oo farxad ku abuurayaan qalbiga qofka sameeyey. jaamacadda Harvard waxay bilowday sanadkii 1938 baaritaan loo bixiyey The Grant Study. baaritaankan wuxuu socday 75 sano, waxaana lagu baarayay oo intaas dabagal lagu samaynayay nolosha caafimaad ee jir iyo maskax dad gaaraya 724. dadkaas sanad walba su'aalo ayaa la weydiinayay. waxaa la aqrinayay warbixinada caafimaadkooda. waxa baaritaan lagu samaynayay dhiigooda. waxa sawiro iskaan laga qaadayay maskaxdooda. waxa si gaar loola soconayay isbeddelka noloshooda ee dhan walba. si joogto ah ayaa loo waraysan jiray, guryahooda loogu tegi jiray. waalidkoodna si gaar ah ayaa waraysi looga qaadi jiray. kadib way waaweynaadeen, shaqooyin kala duwan ayay galeen. midkood wuxuu madaxweyne ka noqday Maraykanka. qaarkood qamriye cab daran ayay noqdeen. kuwa nolosha heer sare ayay ka gaareen, kuwa kalena dhanka kale. 75 sano kadib oo baaritaan ah waxaa la ogaaday qofka xiriir fiican la leh qoyska, saaxiibada iyo bulshadaba ayaa caafimaadkiisa jir iyo maskaxba aad ugu fiican yahay kan keliga ah oo xiriirkiisu yar yahay. xiriirada wanaagsan waxay saameyn weyn ku leeyihiin qofka raaxaysiga iyo qanacsanaanta nolosha. Roger Feiland oo daraasadda 3 buu ka qoray wuxuu leeyahay baaritaanka waxayna tusayaan farxaddu waa xiriir wanaagsan oo ku dhisan jacayl joogto ah. dabeecadda wanaagsan haddii ay quruxda jiidanayso aragyada, akhlaaqduna waxay jiidan qalbiga. dabeecadda wanaagsan waxay qurxisaa wejigaaga, waxay kuu yeeshaa soo jiidasho, waxayna ku jeclaysiisaa dadka qaarkood marna ma dhammaado quruxdooda si walba oo ay u weynaadaan, sababtoo ah quruxdooda ma ahayn wejiga laakiin waxay ahayd qalbiga. diinta islaamka ma ahan oo keliya salaad, soon iyo zako.
sidoo kale waxaa in badan nala amray in aan ku dadaalno dabeecadda wanaagsan. qofkii la yimaada dabeecad xun haddii uu salaada iyo soonka ku dadaalo xitaa lagama aqbalaya sida nebi sal slam uu leeyahay. qofka aan iska dayn hadalka beenta ah iyo dhaqanka xun, allah dan kama lahan inuu iska daayo cuntadiisa iyo cabiddiisa. sidoo kale nebi sal slam waxaa loo sheegay maalin maalmaha ka mid ah in ay dhimatay haweeney salaada iyo soonka iyo sakada ku dadaali jirta, laakiin dariskeeda dhibi jirtay. waxa uu ku jawaabay in naagtaas la cadaabayo mar haddii ay dhibi jirtay dariskeeda. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu maalin ku yidhi asxaabtiisa, ma garanaysaa ninka hanti beelay? waxay yidhaahdeen ninka hanti beelay waa midka aan xoolo haysan. nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi, ninka xoolo beelay xagga alleh waa midka maalinta qiyaama la keeni doono isaga oo wata salaad badan iyo soom badan iyo sako badan, laakiin waxaa la keenaya isaga oo qof caayay iyo qof uu maal ka dhacay iyo qof uu garaacay. markaas ayaa dadkii uu intaas ku sameeyey loo qaybinayaa ajarkiisa, oo marka ajarkiisu dhammaado ayaa dembigooda la soo qaadaya oo isaga dusha laga saaraya, sidaasna naarta loogu tuuraya. sababta ugu muhiimsan ee nebi sal slam loo soo diray waa in uu dhammaystiro dabeecadaha wanaagsan ee qofka iyo bulshada. nebi sal slam wuxuu leeyahay, waxaa la ii soo diray si aan u dhammaystiro dabeecadaha wanaagsan. diinta arki maysid allah oo na amraya cibaado aan caddaynayn ujeeddada laga leeyahay in ay tahay in dabeecadaha wanaagsan ay dhammaystirayso. tusaalooyinka waxaa ka mid ah salaada. oog salaada si wanaagsan. hubaal salaadu waxay ka reebtaa qofka anshax darada iyo xumaanta. sakada ka qaad nebi allow maalkooda sadaqo sako aad ku daahirinayso, iyada oo micnaha sakadu tahay u axsaan falka dadka iyo wanaajintooda. haddana sidoo kale waa edbin nafta. soonka waxaa la idinku faral yeelay soonka sidii loogu faral yeelayba kuwii idinka horeeyey, si aad isaga jirtaan xumaha. qofka uusan saamayn soonka naftiisa iyo edebtiisa xagga dadka ma uusan hirgelin ujeeddada soonka. ajarka dabeecadaha wanaagsan. dabeecadaha wanaagsan waxay leedahay ajar iyo xasanaad aanan la soo koobi karin. sida midka koowaad, nebi sal slam wuxuu leeyahay, akhlaaqda wanaagsan wuxuu qofku ku gaaraa darajada qofka maalin oo dhan sooman oo habeenkii tukanaya. 2, waxa kale oo uu yidhi nebi sal slam, akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu galaa jannada. midka 3, waxa kale uu yidhi nebi sal slam, akhlaaqda wanaagsan waxay cuslaysiisaa miisaanka qofka maalinta qiyaamo. midka 4, waxa kale oo uu yidhi nebi sal slam, akhlaaqda wanaagsani waxay kordhisaa cumriga. midka 5, waxa kale oo uu yidhi nebi sal slam, waxa ugu badan ee dadku ku galaan jannada waa alla ka cabsiga iyo dabeecadda wanaagga. allow sida aad u wanaajisay abuuritaankayga, allow u wanaaji dabeecaddayda. maxaa ka qurux badan in aad tusaale ka dhigatid macallinka farxadda xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam. anas wuxuu leeyahay, nebi sal slam wuxuu ahaa dadka kan ugu dabeecad wanaagsan. sidoo kale marka uu alla ammaanayay wuxuu ku ammaanay dabeecad wanaag, waxaana kuu sugnaaday dabeecado fiican oo weyn. tusaale dabeecadihii nebiga sala allahu calayhi wasalam. midka koowaad, carruurta. nin reer baadiye ah ayaa u yimid nebi sal slam, markaas wuxuu ku yidhi, ma waxaad dhunkataan ilmihiina? waayo innaga ma dhunkano ilmaheenna. markaas ayaa nebi sal slam wuxuu ugu jawaabay, maxaan kuu qaban karaa haddii uu allah ka qaaday qalbigaaga naxariista? nin kale wuxuu arkay nebi sal slam oo dhunkanaya xasan bin cali. markaas ayuu yidhi, waxaan leeyahay 10 wiil aan marnaba dhunkan mid ka mid ah. markaas ayuu nebi sal slam wuxuu ku yidhi, qofkii aan naxariisan loogama naxariisto xagga ilaahay. marka ay u timaado gabadhiisa faatima, wuxuu soo qabanayay gacanteeda oo dhunkanayay. wuxuu fariisinayay halka uu fariisanayo. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu mar tukaday isaga oo xambaarsan gabadha uu awowaha u ahaa, umaamah bintu zaynab. sidaas awgeed marka uu sujuudo wuu dhigayey, marka uu soo kacana wuu qaadayey. marka uu galo salaada oo maqlo oohinta ilmaha, wuxuu ku dhaqsanayay gudashada salaada
oo khafiifinayay. waxaa laga soo wariyey Abu Qataada oo ka soo wariyey Nabi sallallahu alayhi wasallam inuu yiri waxaan u istaagaa salaada aniga oo aan doonaya in aan ku dheeraado, markaas baa maqlaa oohinta ilmo yar oo soo gaabsha salaadayda aniga oo nacaya inaan dhibaateeyo hooyadii. midka labaad, qoyska. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu qaban jiray howlaha guriga oo uu ku caawin jiray reerkiisa wax kasta, ha yaraadaan ama ha weynaadaan, sida ay leedahay xaaskiisa Caaisha. wuxuu qaban jiray howlaha ay u baahan yihiin reerkiisa. midka saddexaad, xoolaha. waxa uu ku boorin jiray dadka in ay daryeelaan xoolaha oo aanay saarin wax aanay qaadi karin oo aan la dhibaatayn. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Allah wuxuu qoray in la wanaajiyo wax kasta qabashadooda. sidaas darteed marka aad dilaysaan xoolaha, wanaajiya dilka, oo marka aad wax gowracaysaan, wanaajiya gowraca, oo midkiin ha soofeeyo afka mindidiisa oo ha u fududeeyo gowraciisa. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay in haweeney ku gashay naarta inay xirtay darteed yaanyuuray lahayd oo u dhimatay gaajo. wuxuu sidoo kale taa beddelkeeda inoo sheegay inuu Allah ugu dambi dhaafay nin inuu waraabshay ay uu haraad ka batay. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haweeney waxay ku gashay naar bisad ay xirtay, marka cunto ma aanay siin, umana aanay dayn inay wax ka cunto cawska arlada. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay nin isagoo maraya waddo buu aad u oomay. markaas ayuu helay ceel oo biyo ka cabay. markaas kadib wuxuu arkay ay aad u ooman oo cunaya ciidda oon dartiis. markaas ayuu ninkii wuxuu yiri wuxuu aygan ka gaaray oonka meesha aniga iga gaaray oo kale. markaas ayuu ceelka biyo ugu soo doonay. markaas ayuu biyo siiyey ayga. markaas ayaa Allah u dambi dhaafay. waxay weydiiyeen saxaabadu, nabi Allah, oo ma waxaan ka helaynaa ajar xitaa xoolaha? wuxuu yiri beer kasta oo qoyan waxa ku sugan ajar. quruxda wajigaaga. waad qurux badan tahay marka aad dhoola cadaynaysid. dhoola cadayntu waa hadal wanaagsan oo aan codkiisa la maqlayn. dhoola cadayntu waa luqad ay fahmayaan adduunka oo dhan. dhoola cadayntu waxay kuu soo jiidaysaa qalbiyada si sahlan oo dhib la'aan ah. maalintii ku soo marta adiga oo aan dhoola cadaynin waa maalin aad khasaartay. dhoola cadayntu waxay abuurtaa raaxo nafsi ah, waayo marka aad dadka u dhoola cadayso, iyagana weji wanaagsan ayay kuugu qaabilayaan. dhoola cadayntu waxay khafiifisaa murugada maskaxdaada, taas oo kuugu hagi kara inaad noqoto mid farxad u hela si joogto ah. haddii aadan sabab u noqon karin qof dhoola cadayntiisa, sabab ha u noqonin qof ilintiisa. dad badan ayaa jira jecel in ay noloshaada ku qurxiyaan farxad iyo dhoola cadayn. adigana isku day in aad ku abaalmarisid dhoola cadayn qurux badan haddii aadan wax kala awoodin. xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa farxad socota, mid mar walba dhoola cadeeya oo la kaftama saxaabada. Cabdullah ibn Xaaris wuxuu leeyahay maan arkin cid ka dhoola cadayn badan nabiga sallallahu alayhi wasallam. maxaa ka qurux badan dhoola cadaynta xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jaabir bin Sumrah ayaa fiiriyey dayaxa iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wajigiisa. wuxuu dhahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuu ka nuur badnaa dayaxa. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhihi jiray u dhoola cadaynta wejiga walaalka waa sadaqa iyo wanaaga ha yaraysan, haba ahaato inaad walaalka kula kulanto weji furan. shakina kuma jiro in walaalka oo qalbigiisa aad farxad geliso inay tahay akhlaaqda teeda ugu wanaagsan. sidaas awgeed waxaa ka mid ahaa dhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam in uu ka farxiyo dadka xaasaskiisa, carruurta. maalin ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo galay Caaisha oo ciyaaraysa. markaas ayuu ku dhahay waa maxay kuwani? waxay dhahday waa hablahayagii. wuxuu yiri
muxuu yahay kan u dhaxeeyana waxay dhahday waa faras wuxuu dhahay oo waa maxay waxan uu wato waxay dhahday waa baalal markaas ayuu yiri oo ma faras baa baalal leh waxay dhahday miyaanad maqal in fardihii nebi Sulaymaan ibnu Daa'uud ay lahaayeen baalal markaas ayuu qoslay nebi sallam ilaa laga arko goos dambeedkiisa habeenay duq ayaa u timid nebi sallam oo ku dhahday nebiga Ilaahayow ii bari Allah si uu ii geliyo jannadiisa wuxuu dhahay nebi sallam jannada ma galan islaamuhu markaasay laabatay iyada oo murugaysan oo ooynaysa markaas ayaa nebiga dhahay ma galaysid adiga oo waayeel ah oo da'daada ayaa la yaraynayaa miyaanad aqrin aayadda qur'aanka innaa ansha'naahunna inshaa'a fajacalnaahunna abkaara anagaa da'yarayn haweenka jannada kana dhigi kuwa bikrooyin ah dhoola cadayntu waxay leedahay saamayn cajiib ah waana muhiim qof kasta oo doonaya inuu kasbado jacaylka dadka in uu badiyo dhoola cadaynta mahmaah ay isticmaalaan dadka Chinese-ka ayaa ah haddii aadan ku fiicnayn dhoola cadaynta ha furan dukaan shirkadaha guulaystay ayaa qaar shuruudaha shaqaalahooda ka dhiga in ay badiyaan dhoola cadaynta si ay u soo jiitaan una raaligeliyaan macaamiishooda customers waji furan ayaa la galaa ee albaab furan lama galo hadal wanaagsan ku hadal ama iska aamus xadiis hadalka wanaagsan waa hadiyad midka ugu wanaagsan oo la isa siiyo hadalka wanaagsan ee macaan qalbiga iyo naftaba ayuu u fiican yahay farxad iyo isjacayl ayuuna abuuraa qulubtana wuu isu soo dhaweeyaa wuxuuna meesha ka saaraa cuqdada nacaybka kala shakiga iyo wix la mid ah alla wuxuu leeyahay dadka hadal wanaagsan ku dhaha kuma koobna muslimiinta kaliya ee dadka oo dhan muslim iyo gaalba waxaa la ina amray in aan hadal wanaagsan kula hadalno si gaar ah hadalka macaan ee qalbiga ku beeraya wanaaga waxa u baahan waalidka iyo ilmihiisa walaalka iyo walaalkiisa ninka iyo xaaskiisa macalinka iyo ardaygiisa mas'uulka iyo shaqaalihiisa si guud in wanaag loogu wada hadlo looguna wada dhaqmo ayaa la doonayaa si loo noqdo bulsho iyo ummad dhinac walba ka wanaagsan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kelmada wanaagsan waa sadaqa hadal walba oo wanaagsan aad dadka kula hadashid waxaad ku helaysaa ajar imise mar ayaa dadka maalintii ku dhahdaa hadallo wanaagsan oo qalbigooda soo jiidanayo waxaa la ogaaday dadka hadallada macaan inay yihiin dadka loogu jecel yahay ee ugu saamaynta badan hadalka macaan wuxuu jilciyaa qulubta ka adag dhagaxa hadalka xun wuxuu qaribaa qulubta ka qafiifsan suufka hadalka wanaagsan waa hadalka dabacsan ee ixtiraam iyo qadarin wata ee aan diidmo iyo dhaawac u geysanayn qulubta dadka waana hadal macaan oo ku sidata ammaan duco iyo nasteexo iyo tusaalayn hufan ee waxtarka leh inta aadan hadlin dhegayso wada sheekaysigu waa hadal iyo maqal labadoodana dhegaysiga ayaa adag qof walba waxa uu rabaa in uu hadlo sidaas daraadeed qof walba wuxuu rabaa in la dhegaysto hadalka waxba laguma barto ee dhegaysiga ayaa wax lagu bartaa haddii aad maanta oo dhan hadlayso jahligaaga unbaa soo baxaya laakiin dhegaysiga wax badan buu qof ka baraa maadaama qof walba uu doonaya in uu hadlo haddii aad dadka dhegaysato marka ay hadlayaan ee kuu sheekaynayaan waxay u tahay qadarin iyo weynaan waxay dareemayaan in aad agtooda ku weyn tahay maadaama aad dhegaysanayso haddaba haddii aad doonayso in dadka la sheekaysigaaga jeclaystaan noqo dhegaysta wanaagsan hadalka malab ugu dar erayada macaanka badan waa sixir oo kale qofka qalbigiisa ayay si toos u gelaysaa hadalkaaga ku dar malab si uu u noqdo macaan uu u soo jiito qalbiga ku tilmaan qofka kale sifo wanaagsan bini'aadamka waxa uu ugu jecel yahay ayaa ah ammaanta nin boqor ahaa ayaa ku riyooday ilkihiisa oo soo daatay kadibna wuxuu u yeeray nimankii riyada u fasirayay kadibna kii koowaad ayaa dhahay mudane riyadaadu waxay tilmaamaysaa in ehelkaagu dhammaantood ay dhimanayaan boqorkii inta uu xanaaqay ayuu ninkii xabsiga geeyey kadibna nin kale oo riyada fasira ayaa boqorkii u yimid wuxuu dhahay boqorow hambalyo boqorkiibaa isaga oo yaaban dhahay maxaad igu hambalyeynaysaa
wuxuu dhahay riyadaadu waxay sheegaysaa in adigu aad tahay qofka ugu cumriga dheer ehelkaaga. kadibna boqorkii inta uu farxay ayuu ninkii hadiyad siiyey, iyada oo labadii nin ee wax fasirayayba ay sheegeen in boqorka ehelkiisa dhimanayaan. haddana u fiirso farsamada ninka dambe adeegsaday. isku day in aad mar walba hadalkaaga ka horaysiisid ammaan aad dadka qalbiyadooda ku furayso. ilaali dareenka qofka aad waaninaysid. carruurta yaryar ee xanuunsan ma jecla inay cunaan daawooyinka qaraarka ah, sidaas awgeed waxaa waalidka ka horaysiiyaan waxyaalo macmacaan sida nacnaca, sababtoo ah daawo qaraar ah oo qalalan ma jecla carruurta inay cabaan. sidaas oo kale marka aad rabta in aad qof wax ka qaldan yihiin u sheegto, marka hore ammaan soo jeedi si uu qalbigiisa kuugu furo, kadibna arrintii ka qaldanayd u sheeg. sidaas waxaa samayn jiray nebi sal sallam. cabdullaahi ibni cumar oo ahaa wiil dhallinyaro ah ayaa wuxuu seexan jiray masaajidka, kadibna wuxuu ku riyooday isaga oo 2 malag u yimaadeen oo ay cadaabta u sii wadaan. markaas ayuu dhahay, ilaahow cadaabtan kaa magan galay. kadibna riyadii ayuu walaashiisa xafsa u sheegay, iyadana nebi sal sallam ayay u sheegtay. wuxuuna dhahay nebi sal sallam, cabdullaahi waa nin wanaagsan haddii uu salaada habeenkii tukan lahaa. yaa allah, erayada ammaanta waa sixir oo kale. maxaa ka cajiib badan nebi sal sallam? bal waxaad qiyaastaa haddii uu nebi sal sallam ku dhihi lahaa cabdullaahi isaga oo masaajidka nebiga sala allahu calayhi wasallam seexda ayaanu salaatuleyl tukanin. waa nin xun, niyadjab soo kuma dhici lahayn saxaabigan. runta ka hadal, mar walba ka hadal runta, sababtoo ah waxay kuugu hogaaminaysaa waa jannada. haddii aad tahay qof beenaala ah, dadku ma kuugu kalsoonaadaan. u mahad celi dadka. qofka ibni aadamka ah haddii aad ugu mahad celiso wanaagga uu kuu qabtay, wuxuu dareemayaa inaad abaal u hayso, taas oo ku dhiirigelinaysa inuu wanaagga sii joogteeyo. haddii wax yar oo fudud laguu sameeyo, ku mahad celi, adiga oo qofkii wanaagga kuu sameeyey tusaya in aad ku faraxsan tahay wanaagga uu kuu sameeyey. diinta islaamku waxay isku xirtay u mahad celinta dadka iyo u mahad celinta ilaahay. wuxuuna dhahay nebi sal sallam, qofkii wanaag idin sameeya ugu abaalguda, haddii aydan helin waxaad ugu abaalgudaan u duceeya ilaa aad ka arkaysaan inaad u abaalgudeen. waxa kale oo nebi sal sallam uu dhahay, ilaahay uma mahad celinin qofkii aan dadka u mahad celin. haddii wanaag laguu sameeyo, ma waxaad ku dhibaysa erayga ah waad mahadsan tahay. haddii uu qofka ku mahad celiyo wixii loo qabtay, ha yaraato ama ha weynaato, isagana wanaag walba uu dadka u sameeyo waa loogu mahad celinayaa. ka hadal dareemahaaga. haddii aad qof u qabtid jacayl, waxaa muhiim ah in aad u sheegtid jacaylka aad u qabtid, sababtoo ah nebi sal sallam wuxuu leeyahay, haddii aad qof jeclaatid, ugu tag gurigiisa una sheeg inaad jeclaatay. qof la jecel yahay kula dhaqan qof waliba sida aad kula dhaqanto nafsadaada. ha yasin, ha xaqirin, been ha u sheegin, ha xaman, hana isku dayin inaad qof dulmiso, waayo zamanka waa wareegtaa, kadib waxa uu ku dhadhansiiyaa waxaad samaysay. sideen ku noqdaa qof la jecel yahay? midka koowaad, dareensii qofka inuu muhiim yahay. haddii aad doonayso in dadku ku jeclaadaan, ku qadariyaan, la kulankaaga u soo xiisaan, dareensii inuu agtaada ku weyn yahay. qof walba uu jecel yahay inuu dareemo inuu muhiim yahay. midka labaad, ku bilow salaan qiimo leh. salaantu waxay badisaa jacaylka ay dadka kuu qaadayaan. wuxuu yidhi nebi sal sallam, salaanta badiya oo faafiya waad isjeclaanaysaan. salaanta kuma xirna qofka aad taqaanid ee salaan, midka aad taqaano iyo midka aadan aqoonba. midka saddexaad, dadka kala hadal waxa ay danaynayaan. qof walba waxa uu doonayaa in lagala hadlo baahidiisa, maadaama dadka aanay wada helin cid kala hadasha waxa ay iyaga rabaan in lagala sheekaysto, laga waraysto. haddii aad adiga booskaas u buuxisid, waxaad noqonaysaa qof agtiisa ku weyn oo in badan xasuusto. qofka aad la kulanto ka warayso riyooyinkiisa, waxyaabaha uu jecel yahay in uu qabto iyo wixii la mid ah. waxa hubaal ah, haddii uu walaalkaa yahay, haddii uu waalidkaa yahay, haddii uu saaxiibkaa yahay, iyo haddii ay cid kale tahayba,
in uu wax badan dadka kaa soo dhawaysan doono. Midka afaraad, booska dadka isdhig. Dadka waxaad u muujisaa inaad aqbasho cudurdaarkooda adiga oo isdhigaya booskooda ay taagan yihiin. Dadka haddii aad sidaas kula dhaqanto waxay dareemayaan in aad iyaga dantooda u taagan tahay, waxayna kuugu haynayaan qalbiyadooda iyaga oo kuu muujinaya dareen jacayl iyo mid naxariis. Midka shanaad, ceebaha dadka ha sheegin. Haddii aad rabto inaad dadka kasbato waa inaad ka dheeraataa ceebaha dadka, sababtoo ah qof kasta wuxuu leeyahay ceeb u gaar ah. Tusaale ahaan, maalin ayay saxaabadii Nabi sallallahu alayhi wasallam ku arkeen Cabdullaahi ibn Mascuud isaga oo geed cadaya soo goosanaya oo dabayshuna marba dhinac u tuurayso. Markaas ayay ku qosleen. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, maxaad la qoslaysaan? waxay dhaheen lugihiisa caatada ah. Wuxuu ku dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam, ilaah baan ku dhaartee lugihiisu miisaanka waxay ka culus yihiin buurta Uxud. Midka lixaad, qiro qaladaadka aad gashay. Marka aad qiratid qaladkii aad gashay oo aad qofkii ka raali gelisid, waxaad qiyaastaa qofkaas kalsooni intee la'eg ayuu kuugu qabayaa. Nabigeena wuxuu ina baray duco cajiib ah oo aynu ku ducaysanayno maalin kasta iyo habeen kasta. Ducadaasoo ah, waxaan qirayaa nicmada aad korkayga ku nimcaysatay. Waxaan kale oo aan Ilaahay kuu qirayaa dembigaygii oo ii dembi dhaaf, maxaa yeelay cid dembi dhaaftaa ma jirto oo aan adiga ahayn. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo cadeeyay in ducadan qofkii ku ducaysta subaxdii ee dhinta isla maalintaas uu jannada galay. Qofkii ku ducaysta galabtana ee dhinta isla habeenkaas uu jannada galay. Midka toddobaad, usu hadiyeeya waad isjeclaanaysaan. Hadiyadu waa dhaqan uu noogu dardaarmay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam, in aan isu hadiyeyno waxyaabo qaali ah iyo wax aan qaali ahaynba si aan isku jeclaano. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay, usu hadiyeeya waad isjeclaanaysaan. Midka sideedaad, dadka u naxariiso adigana ha lagu naxariistee. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, kuwa naxariista waxa uu naxariisanaya iyagana naxariista Allah. U naxariista kuwa dhulka jooga, waxa idin naxariisanaya kan samada jooga, Allah. Midka sagaalaad, la tasho oo taageero ka dalbo. Haddii aad asxaabtaada ku dhahdid qorshahan aynu qaadanay bal ka tala bixiya, maxay idinla tahay? Fikirkiina waa noo muhiim, fadlan nala wadaag aragtidaada. Erayadaasi waxay dadka dareensiinaysaa in horumarka la rajaynayo ay qayb ka yihiin. Marka aad fikrad soo bandhigayso, qofka dareensii inay tahay wax aad wada leedihiin oo aadan ka caqli badnayn. Midka tobanaad, ha hilmaamin isqurxinta iyo nadaafadda. Quruxda iyo nadaafaddu waxay soo jiidataa isha, dadkana way kuugu jeclaanayaan. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, Ilaahay waa qurxoon yahay, waxa uu jecel yahay quruxda iyo waxa qurxoon oo idil. Midka 11aad, balanta ilaali. Diinteenna waxay marar badan nagu dhiirigelisay balanta in aan ilaalino, taas oo la gaarsiiyey heer munaafiq lagu tilmaamo qofkii aan oofinteeda ku dadaalin. Afkaaga adaa furaha u haya, wixii aad balan qaadayso miisaanka saar. Midka 12aad, caawi xilliyada adag. Dadka ma iloobaan qofkii caawiya xilliyada adag. Sidoo kale ha dhihin hebel ima yaqaano waqtiga danta uu leeyahay, maahane, laakiin waxaad dhahdaa, waxa mahad leh allihii igu karaameeyey inaan dadka dantooda u fuliyo. Sababtoo ah waxaa jira xadiis dhahaya, dadka alle agtiisa loogu jecel yahay waa dadka ugu anfaca badan dadka. Midka 13aad, dareensii in aad wanaagga la jeceshahay. Midka 14aad, xifdi magacyada dadka, uguna wac magacyada ammaanaanaysta ay jecel yihiin. Midda 15aad, qof kasta dabeecadiisa oo wanaagsan kula dhaqan si aad u soo jiidato. Mahadnaq. Mahad dhammaanteed Ilaahay baa leh. Allaha noogu nimceeyey nimcooyin faraha badan oo aan la koobi karin. Allaha na siiyey arag, maqal, caqli iyo xoog.
allaha nagu hanuuniyey diinta toosan ee islaamka. allaha ii fududeeyey in aan qoro buuggan ka hadlaya ku raaxaysiga nolosha. Kala soco barnaamijyo xiiso badan janaalka Inspire Somali. Mahadsanid.